بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد مسؤولين وزير هذا قلمدوك قدوميها قبل كقلمدوك تليها غيبتا كوي لباتنات تليها بريسة هي دمان مامولكا قبل كبنادر وعاما أنت فرصة نوعة إننا ولا لهينا aan ku wareejino la dagaalanka khawaarijta ciidanka ku jiro inaan 10kaas neef oo geela inaan ku wareejino maanta fursad ayay noo tahay runtii hore ayaan uga hadlay dagaalku waxaan dhahaa waa gacan waa af waa jeeb qof kastaba meesha uu ka geli karo inuu ka galaa la rabaa maadaama aan tegi waayay furimihii dagaalka ee aagga hore aan tegi waayey ayaa ila ahaaweysay inaan iska laabto ma aragtay anigoon xoogaa dareenkayga aan qabno anagoon muujinin sidaas ayaan waxaan ku talagalnay maanta inaan muujino dareenkayna haddaan nahay gobolka banaadir mas-uuliyiintiisii oo wada socoto inaan ciidamada aan ku garab istaagno cid kastaba wixii maaragtay awooddo ay ku garab istaagto qaarkood ay u duceeyaan qaarkood ay ku taakuleeyaan wejiga inay geeyaan goobta dagaalka ka socdo qaarkood inay fikir iyo maskax geeyaan qaarkood inay geeyaan maaragtay wax alle waxay awoodaan cid kastaba annaga markaa maadaama aan tegin goobtii hadda la iska soo horjeeday taliyayaasha ciidamada iyo mas-uuliyiintii gobolka galmudugba waxaan ku wareejinaynaa 10kaas neef oo geel ah si maalin uun ciidamada maadaama aag dheer ay ku jiraan dagaal muddo badan ay ku jiraan in xoogaa maalin la dareensiiyo in dadkooda ay garab taagan yihiin hilib ay dhadhamiyaan marka waxaan rabnaa insha allahu waa la guulaysanayaa haddii ilaa yidhaahdo laakiin waxay u baahan tahay guushu haysmay u baahan tahay in lagu adkaystay u baahan tahay waxaan leenahay yaan la dayicin ciidanka yaan la dayicin dadweynaha soomaaliyeed dibad iyo guda intii joogtaba ciidanka yaan la dayicin aan leenahay ha la garab taagnaado waxaan si gaar ugu mahad celinaynaa reer galmudug oo runtii maaragtay soo dhoweeyey wufuuddii kala duwaneed ee soo gaartay caasimadda galmudug oo aan runtii maalmahan joognay martisoorkoodii iyo soo dhowayntoodii waa uga mahad celinaynaa gacanno dagaalay kula jireen gacanno soo dhowaynta martida ayay ku haayeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo ciidamada xoogga iyo guud ahaanba mas-uuliyiinta kala duwanna waxaan leenahay madaxweynuhu waa ku mahadsan yahay inuu dhowr iyo 20 maalmood oo halkan fadhiisto uu bar ka dhigto haddii ilaah yidhaahdo sidaas ayuuna wadayaa siduu ballan qaaday annaguna inaan micigiisa ahanaa nagala rabaa gabar iyo wiilsaan u nahay in micigiisa la noqdaa la rabaa oo garabkiisa la istaago waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu